بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. sababta arrin oo yar aan ka hadlahayay insha Allah tacaala ma yara laakiin xoogaa soo jiidatay waxyaalaha oo cajiibta ah waxaa ka mid ah yacni nabiga wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam ilaahay waxyaalaha uu cajiba allahu yiri ilaahay wuxuu la yaabaa buu yiri qawm yadkhuluna aljannata fi السلاسل dad jannada ku gala buu yiri silsilado yani lagu soo jiiday maartay waa kale jihaadku u jeeday dadka lagu soo qabto oo marka islaamka la dhex keeno islaam marka kiiskaas u jeeday marka runtii gabadhan Talyaaniga ah ayaan dhaweyna runtii warkeeda waa la socday guud ahaan marka gabadhaas in ay hatta waxaan arkay meel aan waxaan ku arkay in hatta kuwii dhaqaatiirtii wixii la isugu keenay oo la yiri gabadhan caadi waaye si saxayna islaamku ay ku qaadatay marka kiiskaas oo runtii xoogaa way soo jiitay dad xoogaa tacliiqiyana waa arkay marka laba arrimood waa xoogaa aan ka taaban lahaa awalan waxa weeye horta waxyaalaha oo dadkan reer galbeedka ahi oo dadka la mucaamilooda ahi waqtiyaalka oo dhib kale way yaqaaniin dadka in ay yani jawi ay ku jiraan inay la mucaamiloodaan oo isu akaysiyaan waa yaqaaniin oo waxaan ku arki jirnay waagii aan xabsiga ku jirno hore oo maxamed siyaad barre yani meesha NSS aan ku jirnay ayaa saas oo kale wiil Faransiisahana loo keenay oo dawladdu soo qabteen ciidanka oo ay soo qabteen adigu nin tourist camal iska ahaa laakiin waxay u maleeyeen inuu jaasuus yahay saasay soo qabteen markana loo keenay rag wadaadaho waxaan ahayn maartay kulligood tukanaya oo caynkii marka inuu maartay markaas uu yiri waa islaamay oo caynkaas oo kale oo weysadii aan barno caynkaas oo kale laakiin markii uu baxay khalaas waxa weeyaan cilaanku siiyay marka waa yaqaani dad dhiiranna waa leeyihiin oo rag ah runtii oo waxa weeyaan go'aanku runka yahana waa jira marka waxyaalahaas waa marka waxa dhici karta in ayaan loo sugo inay maartay ay wixii waday in kale in ayaan loo sugo waa yaraha waa dhihi lahaa oo loo kaadiyo balla fiiriyo maartay jawiga markay ka baxdo oo dadkeedii dhex tagto oo maartay yani usradeedii ay dhex tagto qaraarka ay gaarto bal waa fiirinayna iyaguna xoogaa arrintaas way ku adag tahay oo dadka oo xoogaa islaamaan mararka qaarkood aan arkaa dhibka ay kala kulmaan usradooda waan arkaa marka kiiskaas inay u adkaysan karto iyo inay maartay karu noqoto iyo iyaga qaar uu fasaxana waad arkaysaa qaar ku geesinimo geliya waad ku arkaysaa waxyaalo badan aad arkaysaa waxaan xusuustaa islaana maartay wiilkeedii islaamay markaas waxay tilmaan dhow geesi baa tahay bay tiri جزء باتايبتي وأدي هذا الرياب marka waa saas dadna waa ku dhibtoodaan qaarkood ku carabta waan inay dilaan ay mararka qaarkood isku dayaan waa saas waay marka laakiin adigu ala kulli xaal waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sugo oo ku sugo iimaankaas oo ku sugo waxa kale oo jirtay dadka Soomaalida lafteeda markii la xiro oo sida badanaaba way tukan jireen markaas waxaan dhihi jirnay salaada xabsiga ma tirinayno markuu qofku baxo waxa uu sameeyaan arkay yani waxa weeye qofka Soomaaliga markii xogaa dhibka arko waa sida badana salaada waa tukada laakiin markuu ka baxo suu yeelayaan iraan marka kiiskaas labadaas kiis waa jiraan laakiin adagu ala kulli xaal ilaahay ku sugo ilaahan baryayna mid labaadna waxa weeyaan kullayba dadka siyaalo badan ay ula tacaamulahayeen oo maartay yani nimanka shabaabka ama shabaab waxa ka soo galiyeen waxyaalaha caynkaas oo kale taa waxa iska dhici karta ayagu hadda markii waxay ka rabeen kullayba lacag ay ka rabeen markii qofkan waxay u soo qabsadeen waxay ahayd inay furasho ka helaan sababtu waxa weeyaan ayagu siday soo haystaan waa niman hawl weyn ku jira markaas hawshaas weyn dhaqaale u baahan tahay dhaqaalihiina maartay yani waxa weeyaan siday ku helaan waa iska adag tahay oo dadkii qaarna hadeed waaba ka soo horjeedaan oo inay dhaqaale siiyaan ma rabaan
qaarna waxa weeyaan haddii hadda ay taageeri lahaayeen kuwa taageersan hoosta ka jecelna waxa weeyaan waa baqayaan. qaarna asal ahaanna soomaalidu xaggaas waa bukhalo waay sideedana yacni oo uma badna maaragtay inay khayr wax ku bixiska waa ku yar tahay sida carabtoo kale maaha waa ku yar tahay aaday bukhalo u yihiin xaggaas khaalasatan jihaadkana dee maaragtay yacni qofkii kasoo horjeedaa waa gaar laakiin waxa weeyaan bahalkii maxay ahayd xataa qofkii aaminsan laftiisu wax ku bixintiisa ma yaqaaniin ma yaqaaniin marka saas darteeda maaragtay dee inay wax xoogaan iyo inay maaragtay maahane dawladuna ma siinayso dawladuna wax ma siinayso oo dawladuhu haddeed waa isla socdaan marka kiiskaas isku sii uga soo wada horjeedaan ama muslim ha sheegteen ama is sheegan isku sii uga soo wada horjeedaan kiis ayaga ay dareemayaan inuu ayagu ku jeedo waayo marka sidaas darteed inay wax ku bixiyaan ma suuragal aha. qaarkood waa laga yaabaa inay iyagoo isleeyaan la idin qarxinin inay wax ku bixiyaan sida imaaraadka oo kale waa iska dhici kartaa yaan maaragtay yani dhib ka badan oo idinkaga imaanin oo wax iskaga sagootiya inay is yidhaahdaan waa dhici kartaa. يعني وأيجا لفتوذا ورهونا كما هيو لكن ظني ساسها إيجا جرا أيجا لفتوذا ورهون وما هيو لكن ظني أساس إيجا جرا إني مارتي يعني وحيالها يقولنا بدقلان إني تهي إني مارتي فداء إني سبعيان بسير هذان بالمارتي من كاس يا هذه كل إحدانا لأن من لو جيدا ما مركز أساسه وجد مركز إن ساس دولت هذا لقي يابان منكا إن يكو جيدين إن يوحكي هلان جيدين إن ساس هاي مركا لكن وحاجرتا نك اللي جرى هذا الإمام غزالي حالك الشيء قالوا أبوه كدنتي مركا نين كلا صوفيه وقتجي مركا نينك حوجاجي مركا أضاجي وقتجي كو كذا ماضي مركز وحو يسيري ومرة كهل دونا إن شاء الله مركز وحو يسيري مال مدرسة oo maartay yani islaamku waxa jirtay maartay madaarista alin ardada iyo waxba la siin jiray maartay marka quud ahaan oo kala doon marka saasa marka cilmiga uu ku bartay cilmiga asagii walaalkiis bin Ahmed la oran jiro asaguna nin maartay wajiib aha saasay ku ay wax ku bartay markaas wuxuu yiri hadal yaab laha laga reebay wuxuu yiri aradna li ghayri allah buu yiri walakin wuxuu yiri aradna li ghayri allah وأبى العلم إلا لله ها إلهي غير كيسان ماشى عن دوني نور عنا دوني نمركي ماشى عنو قلني لكن علمي مال الإلهي هي وادي دو رهي إلهي كأقبله وكهل دونا يعني الله رومينتو إني عجيب تهي وأركي دونا سلوك لكن ماشى الله مراينا وأركي دونا وسجارهان وكهل دونا إن شاء الله تعالى مركو ونيع كرتا مركو مال هذا يعني إلهي در إلهي أن لو جيدين إن مارتي إلهي أي كتماضو وواحد عكرون وواحد عكر أيضا إن وقتماضو واحد عكرتو أيضا إسلام كيداس وحوين إلهي وكان واحد عكرته أيضا نواب تاسو مارتي هديد إلهي سبحانه وتعالى هذو كسبه وحوين أي أنقون إن شاء الله تعالى وين ما وين وواحد لودي قال أكيد مارتي حولك استول بحيي حول الجبحي والله لكن حولك استول بحيي وحكى قيمة بدن يعني سلام كاس قبل ناس إلهي ونارتك وجبت بادي أيها كقيمة بدن وعي فضل قاس إلهي سبحانه وتعالى مركز سياس درتيد وحن كلور قبل صومالي هو أوضق ما هو مارته يعني سلام كي وكبحني وحن وكبحني ويلاش أسدرت ودان وكبحني لها هي مارته وحي كتها هي أي نقطة كتها رنتي بيرحنون إني كتها هم ليناها سويت وحويان مارتي يعني قفنا وكفى إيديه إلهي الإسلام كي وكهلي أسوون الإسلام مركي دونين ونضم بكالهين ونسعونين إلهي مارتي قعنت ومارتي إنه كبت بادي وإلهي الإسلام وكان دعي كرته إذن مارتي يعني قرار كاس إني قادتي أيضا شيء جيس إني خيار قادتي وما يوحي لهن كآخرين كل ساسي هايين قال جاري تلياني أنا ما تلياني ما قاني لكن وحوي ذاتك كسو بورنا يا هذه وسو بورنا يعني قبل سنة خيار وحكوا قاضي مركب قوة سيمارة يعني أيجنا هذا وحن لا هي وحيالها وحيدين ترى يلا ما أركب ملء لها تاجنتين وأنا سوقنا هي
meel cidla inaad taagantihiin oo isla sheegnay ilaahay usoo noqdaan dhihi lahaa ilaahay usoo noqdaan dhihi lahaa qaarkood aan xoogaa maaragtay isku maaragtay dhibahayeyna waaba kusii dhihi lahaa oo waxa weeyaan waxyaalahaas inay ku caqli qaataan waa muhiim waay waana jirtaa haddee ilaahay subxaana watacaala laba aayadoo cajiibaha jirta ilaahay wuxuu leeyahay wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad ilaahay ka jeesataan qolo kalea ilaahay keenaya oo maaragtay oon adinkoo kale ahayn idinka fiican macnaha dad ilaahay ka jeesataan wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum kuwo kalea ilahay idinku bedelanaya uma laa yakunuu amhaalakum adinkoo kalena ma noqonayo waa idinka fiicnaanaya macnaha soo ma aragtid meelna waati ilaahay acuudu billahi min shaytaan rajiim yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa ya'ti illaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunah soo ma aragtid yacni dadka ilaahay haddii qola idinka mido ay ka ridowdo islaamka kuwo kalea ilaahay keenaya oo ka fiican yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi qofkii diintiina maaragtay diintiisa ka ridooba fasawfa ya'ti illaahu biqowmin yuxibuhum qowmuu keenanayaa ilaahay jecel wayuxibuunahu isaguna uu jecel yahay yuxibuhum oo ilaahay jecel yahay ayaguna jecel yuxibuhum ilaahay waa jecel yahay wayuxibuunahu ilaahayna isaguna ilaahayna waa jecel yihiin ayaguna adillatin cala almu'miniina muslimiintay u jilicsan yihiin wacizatin cala alkaafiriina gaaladana ku adag weliba yujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana walaa yakhaafuuna lawmata laa'im qof la dagaala dagaalkeedna aysan ka cabsanin dadkaasina waa iska jira marka kiiskaas maaragtay bahalkii maxay ahayd aan rabay inaan baraarujiyo oo runtii aan dadka ku baraarujiyo ilaahay subxaana watacaala islaamkaan wax qaaliya waaye runtii waxyaalaha aan la yaabay waxa weeyaan maaragtay nin la yidhaha itis oo maaragtay yusuf astis la yidhaahdo oo amerikaan ah oo maaragtay markii horeba bob ahaa markii horeba oo adig qolada mubashiriinta ahaa laakiin intaa jira ahaa ayaa qaabka ku islaamayaan aan dhegaystay isaga ka sheekeynayay qol warsanaysay marka wax la yaab la waayo isaga iyo naagtiisii oo u kala hormarayo markaas naagtii waxay u malaynaysaa inuu islaami rabo markaas waxay istiri hadduu islaamo waxa weeyaan waa talaaqmaysaa markaas waxay damacday inay uga hormarto inay uga hormartay damacday markaas waxay u soo jeedisay inay isfuraan asagii markaas jiq ku tiri asaguna runtii waa rabay wixii jiqay ku tiri markaas wuxuu yiri reerka intaan qolkayga hoosta iskaga xiray waxay yiri intaan sujuudaan ilaahay baryo ilaahu jidii bi khayr markaas islaamkii ku qancay ayadiina waa ku qancay alxamdulillah waa islaamay loodii marka kiiskaas cajiib laha marka waxa weeyaan dad khatar ah waliba malaayiin ninka gacantiisa ku islaamtay aniga qaarkood aanba fiirsaday la yaab loo maartiis waxyaalaha aan la yaabana waxa weeye dadka islaamaahay qof ma arag weli qof islaamay oo aan ooyeyn ma arki ilin qof ka soo baxsanay yani faraxa oo ku faraxsan yahay iyo culayska ka digay mid amerikaan mar waa arkay oo la warsanayo leeyahay maartay qolo tiraahda kayfa aslamtu oo ayaan arkay markaas waxa lagu yiri ay dhaheen haddii aad islaamka ka noqotid waxa weeyaan waa dilay soo maartay yani dilaad galabsanaysa naarna waa galaysaa oo naarad galaysa marka ayagu dilka baba baqayni naartu u sheegay markaas uu yiri naartu midaan ka soo baxay ma ka darantowda yani cadaabkan ku jiray hadda oo aan ka soo baxo ilaahay iga soo bixi may ka darantowda waa ka daranta sax waa ka daranta cadaab adduunyo wax weyn ma marka waa saas waaye ilaahay waxaan ka baryayaa maartay kuwa Soomaalidana Allah soo celiyo kuwa kalena Allah noo keeno insha Allah taala islaamkan caalamka dhama loo soo diray sidii yahuuda oo reer qowm bani Israa'iil oo kala maahan iyo talafteeda ayaka caalami ka dhigay maahan kuwii oo maalkii muxuu ahaa kuwii oo Roomaankii caalami ka dhigay oo dadkii galgaliyay maahan reer bani Israa'iil nabi Ciise loo soo diray anbiyaa bani Israa'iil ugu dambeeyay ورسولا إلى بني إسرائيل وك إلهي دهاي مركب بني إسرائيل من كانوا هاي قيس الله صدر قيس هاي أنبياء داس نبي موسى لقى صوب الله قيس واي أنبياء قيس واي أنبياء قيس واي مش هس مركز هذا فهمتني من كذا واجهز إلهي وادور وفضلناهم على العالمين ودهاي فضلناهم على علم على العالمين أورد
saasuu ilaahay dhahaya marka ayaan dhaweed anigii marka hadlay marka waxa weeyaan laakiin haddee fadligii maxaa ka dambeeyey lacniyaa ka dambeeyey in la lacnaday markay maaragtay ay maaragtay diintoodii ay bedeleen oo halleeyeen oo maaragtay yani munkarkii iska reebi waayeen walaa maaragtay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa ma kaanuu yafcaluun wala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuud waciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa ma kaanuu yafcaluun marka waa saas waaye waxaa lagu lacinoo yidhi carabkii nebi daawuud iyo nebi ciise nimanka reer bani israa'iil sababtu waa maxay bima casaw wa kaanuu yactaduun caasinimona way sameeyeen ictidaa iyo xadgudubna waa sameeyey ambiyaday dilaayaan waxba qofkii wanaag sameeyey wanaag amray dilaayaan khatar ay ama la diriraayaan taas aayaadka qur-aanku siday sheegayaan soomaalid marka ilaahay wuxuu ku sheegay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu yani xumaan ay sameeyeen iskama reebi jirin qoladii saas noqotana sidoo kale ay noqonaan saas oo kale hadda waxa weeyaan waxaa laga yaabaa annaga laftayda inaan saa ku soconaan umalaynaya cumuumka iyaga marka khatar waaye wixii hadday culummadaas un ku ta'asuro mooyaan waxa weeyaan nudumyada iyo khatar waaye meelay ku socdaan meel caadiya ma marka saasay ahaayeen nimankaas marka adigu calaa kulli xaal waxaan u jeedaa ilaahay subxaanahu watacaala islaamkaana ilaahay subxana caalamkaa loo soo diray nebi maxamed caalamkao dhan waa loo soo diray caalamkao dhan waa loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican dhammaantiina laydiso caalamkao dhan loo soo diray haddana ilaahay qadarkiis dadka waa nabi carbeed oo ahaa kuwa soomaaliya afxun afka la taagaya waa arkay laakiin alxamdulilah waxa weeyaan carabtaaba ugu yar hadda dadka muslimiinta dadka rumeeyey carabtaaba ugu yar waa ama rumaysanba waxyaalaha qariibka xataa waxa weeyaan markaad diinta xataa xaggeeda usoo noqoto waxa weeyaan nimanka fuqahadaahi afarta fuqahadaahi waa kala baran yihiin oo labana waa carab labana waa cajam laakiin kuwa muxadisiintaahi waxaa ka maaragtay yani 6 kitaab oo sunanka ah waxa weeye muslim baa carab ka ah inta la sheego soo ma jeedi kuwa oo maaragtay bahalkii maxay ahayd haddii mujaahidiintuna warkood bay iska daaf mujaahidiintuna warkood bay iska daaf nimankaas maaragtay cajamtahay uba badan yihiin marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala noo gargaaro ilaahay noo gargaaro insha allahu tacaala khayr idaba badan baan ilaahay ka rajaynaynaa يعني فقهاء ما فقهاء ما خلدي فقهاء سدح بقى أحمد شافعي مالك انت وسدح ذا سوا وحوية ما لينك اللي أبو حنيفة عجمك أبو حنيفة هو فقهاء لكن محدثين تشتغل مسلم بهالكا هكذا أساسي كليه مركز على كل حال وحن نجي ذا الإسلام كان أمده دم الله صوت دري أمده النبي محمد الله صوت دري كل قد أمده وحلي أمة الدعوة لي هذا هي أمة الإجابة كليه أمة الدعوة وكل عالم كذا جوجو مرك وقت يسي إلى قيام الساعة نبي كلام مجو مرك هذا بينايو لمن يجي نبي عيسى نبي يعصق ومات نبي أمدحين أسيقنا النبي كم ضمبي أسيقنا النبي كم ضمبي مرك الدين تيسوى الدين تجرتاء وهذه الجير مارت إلى قيامة جوجي سوى ضد كمرك الرومين ينا كل وحويا أسيق أو ضد بدلنا نبي صلى الله عليه وسلم أو شيء dadka kale nabi Muuse ugu dad badnaa waa la tusay ru'ya lagu tusay marka wax weeyaan nabi Muuse ugu dad badnaa marka asaga ka dad badnaa waana rajeynaa waayo xujadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa qiyaamo soconaysa waa quraankan cajiib waay waxaan qoranka kuwan mulxidiinta ay la nacnaclaayeen markooda iska dhaaf waxa weeyaan quraankan waa wax cajiib waay nin cilmi leh iyo nin caqli leh iyo nin maaragtay nin kasta waa qancinaya ninka qanaaca raba waa ninkaas uu iska diidaha ma fi mushkil soo mujid laakiin aayad kasta oo aad akhrisid aayad kasta aad aragtid waxa weeyaan si sax ah aad uga fahmaysaa oo ilaahay uu tilmaamaysaa hadalkiisii inuu yahay waxa weeyaan maraan kuma maaragtay waxyaalahaas kale oo waa ka hadli doonaa insha Allah taala laakiin waxaan riidihi lahaa dadku إلهي سبحانه وتعالى ذاتك كتجي ونوصون نقضى ذاتك كلنا إله النوكين ذاتك كلنا إله النوكين إن شاء الله تعالى بس لكن قفك القرآن كاس أخرية وفقا عيا لك شكل القمار وهي قبل أسوأ حتى قرآن كبلا على كان يتري مارتي من ده قبله للجوجي يا حاجة مارتي وحوشة مركز تري بالقرآن كلا كان القرآن كي يقدم ترجمة له كان يقول اللغة كسو أدون كجوجتي أيوة كفسرين هاي مركز القرآن كي الله كان القرآن كي يكون عادي
وانا صادتكم سيده بدنا قرانك ku qancaan quraanka ku qancaan quraanku khatar waa quraanku khatar waa nabiguna waa sidoo kale oo waxa weey wax la yaab loo waa maalin walba hadii dad ku qanco ku soo islaama adduunka meelay ka joogaan marka taas hadda kuwan xun ka ay maartay Soomaalida oo ma ana qancin lahaay waxaas warkooda iska dhaafa waxaan ba ogaaday ba ilaahay qadarkiis marka meesha qanaacadi lagu qancinaha uu joogo oo cararaya marka waa la niqaashaa marar badan waa la niqaashaa ilaahay waa iska kay bara xogaan niqaashka iska aqaana waa mulxidiinta ay waxyaalaas iyo waa iska aqaana alxamdulillah marka niqaashku mar alla markaad ay arko inaad xaqiiqatu siinaysid oo dabada ku dhacay qaarkood aan hadee murankooda aanan rabin waa iska jireen mid xumo in Cabdisalaam la yiraahdo oo maartay yani iska nacnaclaa oo marka waxa weeyaan kaas murankiisa ma aanan rabin ma ana la murmin laakiin waxaan weydiiyay su'aaladan weydiiyay waa ka qanca khalas ma rabin marka in la waaqleeyo ma rabin laakiin qofkii aad yiraahdo waxbaasa iga iskaal galay fiiriya dadka kala laba nin hadii iska cadaawad iyo baalkii iska cadaawad iyo waqti inta wax kala aqliyeystay iska ordaaya oo meel kale ku ordaa dariiq kale ku ordaaya dadku waxa soo kala macna male laakiin qofkii yiraahdo xaqiiqan rabaa waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waana baray marka waxa weeyaan waxaan ogaaday inaysan xaqiiqo ahayn ay maartay ay xumaan doon ay tahay marka wuxuu rabaa inuu adigii iska nin culimo wax weydiiyo oo iska dhigo oo rabaa mar alla markii jawiga aad soo gelisid xagga iyo xagga ka soo geshid oo waxa weeyaan oo dabada ku dhacaaya ay maartay ka dansanay marka insha Allah ta'ala marka waxaas waxba tari maayaan quraanka in ilaahay uu ka yimid qofkii akhriya waa arkaya qofkii qanaaca rabana waa ku qancay qofkii qanaaca raba waa ku qancay qofkii diin rabana waa ku qancay qofkii alla rabana waa ku qancay qofkii aakhira rabana waa ku qancay intaas oo dhan meesha ku jirta laakiin qofka haduu iska ordaayo maartay yani ama daarweyn iyo magaciisi iyo maartay adduunyo iska doorto adduunyo rabo laakiin iska su'aalaad qashqashaas iska weydiinayo kaas waa gaarkiisa ilaahay waxaan uga baryaynaa gabadhaas hadii ay run ka tahay inuu sugo allahna sugaan leena hadii run ka tahay ilaa waxa weeyaan waxyaalaha oo la tixgeliyo hadii dawlad islaam ay jiri lahayd gabadhaas hadii maartay bahalkii taytiri waa islaam ay ka noqoto waxa weey xukun kala ku dhici lahaa laakiin hadda waxa weeyaan wadan oo wadankoodii oo hadda adduunkii yani aqeeda la isugu bayraan jirin oo waxa weeyaan wadan iyo waxaas qashinkaas maartay meesha lagu hayaa marka haday wadankoodii tagtay wadankaas walaan islaam qiimo uusan kala hayn oo markii oo haday ku qanacdo ku joogtana Allah ku sugo hadii kalena hadeed waxa weeyaan ilaahay maartay waxba ka dhibi mayso ayada nafteeda meel daran geynaysa billahi tawfiiq salaamu alaykum